bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo halkani waa codka soomaalida Finland SSM oo goorahan oo kale aad uga barateen bartayada internetka inaanu idinka soo tabino wararkii viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale. sida caadiga ahaydba Finland ayaynu ku bilownaaye maanta oo Isniin ah dalkan Finland sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga waxaa viruska laga helay 283 qof oo hor leh iyadoo tirada guud ee dadka laga helay viruskana ka dhigaysa 24,912 qof. isku darka guud waxaa viruska laga helay 43 magaalo oo kamid ah magaalooyinka dalkan Finland. waxa ugu badan gobolka caasimadda iyo hareeraheeda oo laga helay 191 qof. kaalinta labaad waxaa ku jira gobolka Pohjois-Pohjanmaa oo laga helay 30 qof. kaalinta saddexaadna waa gobolka Varsinais-Suomi oo 15 qof laga helay. meelaha ugu badan ee laga helayo viruska waxaa kamid ah Helsinki 96 qof, Espoo 42 qof, magaalada Vantaa 37 qof, Oulu 24 qof, Turku 13 qof, Seinäjoki 5 qof, gobolka Etelä-Karjala ee caasimadiisu ay tahay Lappeenrantana waa 8 qof, gobolka Etelä-Savo oo caasimadiisu ay Mikkeli tahayna 4 qof, gobolka Päijät-Häme oo caasimadiisu ay tahay Lahtina 4 qof ayaa laga helay. xanuunka viruska corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 175 qof sida ay sheegtay hay'adda THL, kuwaasoo 18 kamid ay ku jiraan qaybta xaaladda aadka u daran. 7 maalmood gudahood ayaa tirada bukaanka isbitaalka waxaa kusoo kordhay 23 qof oo hor leh sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga. waxaa Finland maanta la sheegay in 6 qof oo hor leh ay u dhinteen viruska corona awgiis, taasoo tirada dhimashada ee viruska corona ka dhigaysa tan iyo intii cudurka safmarka ah uu dalkan Finland ka bilowday 399 qof. dhinaca kalena iyadoo ay soo tarayso magaalooyinka uu sida aadka ugu faafayo iyo gobolada viruska corona ayaa gobolka la yiraahdo Keski-Suomi waaxdaas caafimaadka waxa ay sheegeen qolada u qaabilsan arrimaha ka hortagga viruska corona in haatan gobolku uu galay heerkii labaad ee faafista viruska corona ee loo yaqaano heerka karaar qaadashada. arrinkaasina waxaa maanta warbixin ku sheegay guddiga ka hortagga cudurrada faafa ee waaxda caafimaadka ee isudagga degmooyinka ee gobolkaasi Keski-Suomi. waxaa kooxdaasi ay soo jeedinayaan in gobolkaasi iyo agagaarkiisa 20 qof ka badan dadku aanay isugu iman karin munaasabadaha guud, waxaana arrinkaasi uu socon doonaa ilaa iyo muddo 2 toddobaad. waxaa kaloo guddigaasi ay sheegeen in degmooyinka iyo magaalooyinka uu gobolkaasi uu ka kooban yahay hadday u arkaan baahidaas ama ay qabaan baahida ah in ay sii adkeeyaan xadeymaha lasoo rogay ee ku saabsan isu imaatinka ay intaasi tirada kasii yarayn karaan. gobolkaasi ayaa waxa uu hore ugu jiray heerka aasaasiga waxaana haatan u wareegay heerka karaar qaadashada kadib markii tirada dadka laga helayo viruska corona 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay aada usii kordhaysay. gobolka bartamaha Finland ee Keski-Suomi loo yaqaan waxa uu ka mid yahay 19 gobol ee dalkan Finland uu ka kooban yahay, waxaana gobolkaasi hoos yimaada degmooyin iyo magaalooyin ka kooban 23, waana gobolka shanaad ee ugu weyn dalkan Finland. sidoo kale gobolka Kanta-Häme ayaa isaguna daba raacay gobolkaasi, waxaana isagu haatan uu ka gudbay heerkii labaad ee karaar qaadashada isagoo u gudbay heerka saddexaad ee ugu dambeeya ah heerka faafista. sidaasina waxaa maanta shir jaraa'id ku sheegay kooxda ka hortagga cudurrada faafa ee gobolkaasi. inkasta oo kooxdaasi ay caddeeyeen in magaalooyinka gobolkaasi uu ka kooban yahay ee xagga cudurka safmarka ah ku kala duwan yihiin, haddana waxa ay si wada jira kooxdaasi ama si isku mid ah ay go'aan ugu qaateen in gobolka oo dhan la geliyo heerkaasi faafista viruska si markaasi ay u sahlanaato in xadeynta iyo talooyinka la soo jeedinayo gobolkaasi ay noqdaan kuwa isku mid ah. 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa tirada viruska ee laga helayo gobolkaasi Kanta-Häme ay laba jibaarantay. kadib waxaa sidoo kale la sheegay in goobaha baaritaanka lagu qaadana ay aada u buux dhaafeen. gobolka Kymenlaakso oo magaalo madaxiisu ay tahay Kouvola ayaa isagana waxa uu galay heerka saddexaad ee ugu adag ee faafista viruska corona. sidaasina waxaa sheegay waaxda caafimaadka ee gobolkaasi Kymenlaakso, waxaana ay sheegeen kooxdaasi in arrimaha faafista viruska haatan gobolku ay tahay mid aada u sarreysa.
waxaa gobolkaasi ku malaagso 100,000 qof ee kasta tirada faafistu ay noqotay 52 qof, taasi oo ah midda ugu badneed ee soo marta gobolkaasi, iyadoo natiijadii baaritaankuna ay noqotay 3%. laga bilaabo maalinta berri ah ayaa goboladaasi Kantaham iyo Kumalaakso waxaa la diiday dhammaanba isu imaatinka wixii ka badan 10 qof, munaasabadaha guud iyo shirarka, iyo sidoo kale goobaha gudaha iyo dibadda intaba. waxaana ay xadeyntaas u shaqayn doontaa ilaa iyo bisha soo socota ee December 20-keeda. Waaxda caafimaadka ee gobolka Etala Karyalah iyo agagaarkeeda ayaa waxaa loo soo jeedinayaa in 50 qof ka badan aan iyagu isugu imaan karin wada kulanka, waxaana xadeyntaas ay socon doontaa bisha December oo dhan. dhammaan xadeymahan ayaa ah kuwo lagu qiimeeyo xaaladda haatan taagan, iyadoo haddii loo baahdana lasii adkayn karayo. dhakhtar sare oo ka tirsan gobolka Länsi-Pohja ee waqooyiga dalkan Finland ayaa caddeeyay in xaaladda gobolkaasi ee faafista viruska corona aanay marna ka soo reynaynin inta buu yiri dadku ay u soconayaan islamarkaana ay ka gudbayaan xadka ay gobolkaasi u leeyahay dalka Sweden. kooxda ka hortagga cudurrada faafa ee gobolkaasi Länsi-Pohja ayaa waxa ay dadka u soo jeediyeen ama ku booriyeen in ay iska daayaan ama ay ka baaqsadaan socodka aan muhiimka ahayn ay ku aadayaan magaalooyinka xuduudda Sweden ku yaala ee dalkan Finland. dhakhtarka sare ee ka tirsan gobolkaasi oo la yiraahdo Yuri Taskila ayaa waxa uu sheegay in xaaladda gobolkaasi waqooyi aanay marna ka soo reynaynin tan iyo inta dadku ay ka soo adeeganayaan magaalooyinka Sweden ee xuduudda la dalkan Finland ee Haaparanta iyo Luulaya. waxaana uu sheegay haddii dadku ay si dhaqso ah habdhaqankooda u bedeli waayaan isla markaana socodkan macno darrada ay joojin waayaan, ayuu yiri Mr. Yuri in gobolkaasi xaalad degdega lagu soo rogi doono. xaaladda faafista viruska corona ee magaalada Norrbotten iyo agagaarka magaalada Oulu ayaa aad u soo xumaanaysay maalmahan, waxaana sababta awgeed gobolka dariska la ah ee Pohjois-Pohjanmaa la geliyay xaaladda ah faafista ama heerka faafista viruska ee 3. gobolka Länsi-Pohja waaxdiisa caafimaadka waxaa haatan weli ay ku jiraan heerka 2 ee karaar qaadashada, iyadoo haddii xaaladdu ay markaa ka soo darto laga yaabaa inay si dhaqso ah u gudbaan heerka 3 ee faafista. dhinaca wararka tallaalka haddii aynu u gudubnana waxaa la filayaa in tallaaladii viruska corona dalkan Finland ay ka bilowdaan ka hor inta aanay dhammaan bisha December, iyadoo sida haatan la sheegay ay diyaar yihiin tallaaladaasi isla markaana ay shirkadaha sameynaya kaliya sugayaan amarka ah in lagu keeno dalkan Finland. hore ayaa loo cadeeyay in wadamada Yurub qaar ka mid ah ay bishan December horaanteeda bilaabi doonaan tallaalka. sidoo kale dalkan Finland ayaa ka mid ahaa dalalka hawshaasi isu diyaariyay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale hay'adda nolol wanaagga caafimaadka ee THL. waxaa la filayaa in tallaalo laga soo qaadi doono shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ee dalkaasi Mareykanka iyo Jarmalka laga kala leeyahay ay haatan bishan December horaanteeda helaan ogolaanshaha lagu iibin doono tallaaladaasi. waxaana shirkadahaasi ay sheegeen in marka ay ogolaanshaha helaan ay si dhaqso ah u soo diri doonaan tallaaladaasi. dhakhtar sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee arrimaha bulshada Sari Eklom ayaa waxa ay sheegtay in dalkan Finland uu hawshaasi isu diyaariyay isla markaana sida ugu dhaqsaha badan markii la helo ogolaanshaha tallaalka loo bilaabi doono kadib marka tallaalku uu dalka yimaado. Sari Eklom ma aanay cadeynin marka ugu horeysa ee ogolaanshaha la dalban doono iyo goorta markaasi hawsha la bilaabi doono toona. kaaliyaha dhakhtarka sare ee ka tirsan isbitaalka jaamacadda Helsinki ee Hus Eva Ruotsalainen ayaa saaka barnaamijka subax wanaagsan waxa ay ka sheegtay inay habboonaan lahayd in afshareerka khasab laga dhigo dadku marka ay saaran yihiin gaadiidka dadweynaha. hase yeeshee arrintaasi waxaa markiiba ka hor yimid khabiir sare oo ka tirsan dhinaca ammaanka ee shirkadda gaadiidka ee Helsinki, Mr. Sami Holkonen, kaasi oo sheegay in arrintaasi ay tahay ama fikraddaasi ay tahay mid ka hor imanaysa dhinacyo badan sida dhinacyada sharciga, dhaqaalaha iyo habdhaqanka intaba. waxa uu sheegay Mr. Sami in ilaalinta kaliya arrinkaasi ay tahay mid mushkiladeeda wadato aan laga bixi karin. tusaale ahaan waxa uu soo qaatay haddii darawalka baska uu ku khasbo dadka in ay afshareer sitaan mooyaane inaanay soo geli karin baska gudihiisa
ama haddii kale uu ka saarayo baska, waxa taasi ay keeni kartaa iska hor imaad ka dhex mara darawalka iyo qofkaasi baska soo raacayay, taasi oo buu yiri mid khatar ku ah dhinaca ammaanka. sidaasi darteed ayaa shirkadda gaadiidka ee Helsinki waxa ay sheegaysaa buu yiri in qadiyadaasi ay tahay mid haatan aan meesha oolin, isla markaana aan khasab laga dhigi karin. dalka Sweden wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in magaalada la yiraahdo Östersund dugsi sare oo ku yaala arday dhigata ay isku dayeen in ay si kas ah ama ula kac ah ugu dhaco cudurka viruska corona, sidaasina waxa sheegay warbaahinta dalkaasi Sweden. ardadaasi dhigata dugsiga sare ee magaaladaasi Östersund ayaa la sheegay in ay daba galeen oo ay damceen inay isku xoqaan qof qaba cudurka viruska corona. ujeedaduna waxay ahayd si ardadaasi uu cudurku ugu dhaco, isla markaana ay difaaca jirka u helaan ka hor inta aan la gaarin imtixaanada dugsiga sare, taasi oo ay ka baqayeen in inta xanuunku ku dhaco imtixaanku uu ka baaqdo. sarkaal sare oo ka tirsan qaybta dambi baarista booliska Nicholas Stenlov ayaa waxa uu sheegay in haatan hawsha baaritaanku ay tahay mid heer bilow maraysa. ma aanu hayna buu yiri wax markhaati ah qofkii cudurku ku dhacay iyo kuwii lagu tuhunsanaa midna, laakiin arrinkaasi waa arrin haatan baaritaankiisu uu bilow yahay. sidaasina waxaa sargaalka ka soo xigtay jaridada la yiraahdo Dagens Nyheter oo ka soo baxda dalkaasi Sweden. boolisku waxa ay ku eedeynayaan ama ku tuhunsan yihiin ardaydaasi in ay si ula kaca u faafinayeen viruska corona, waxaana arrintaasi haddii lagu helo ay dalka Finland la mid tahay sida iyaga oo jirdil geystay, waxaana lagu xukumi doonaa xukunka lagu xukumo dadka jirdilka geystay. guud ahaan xaaladda viruska corona ee caalamka oo haatan kasii daraysa ayaa qaaradda Yurub waxa ay tirada ama dadka laga helo virus corona isku darka guud ay marayaan 18,420,372 qof. dhimashadu waxay qaaradda Yurub maraysaa 408,449 qof. tirada guud ee caalamka ayaa dadka viruska laga helay 62,757,823 ay haatan maraysaa, halka dhimashada caalamkana ay marayso 1,460,483. Mareykanka ayaa weli ugu horeeya caalamka 13.6 milyan ayay tirada viruska corona dadka laga helay ee maraysa. 24 saac la soo dhaafay 143,373 qof ayaa laga helay, iyadoo tirada dhimashaduna 24 saac la soo dhaafay ay ahayd 216. tirada guud ee dhimashada ayaa dalka Mareykanka waxa ay maraysaa 272,254. Hindiya ayaa kaalinta labaad ku jirta 9.3 milyan ayay maraysaa. Brazilna 6.2 milyan ayay kaalinta saddexaad ugu jirtaa. Ruushka iyo Faransiiska ayaa afraad iyo shanaad marba cidi ay qaadaa. haatan waxaa weli afraad ku jira Ruushka oo 2.24 milyan maraya, halka Faransiiskuna kaalinta shanaad uu marayo tirada viruska 2.2 milyan. Spain ayaa maraysa 1.6 milyan, Ingiriiska 1.6 milyan, Talyaaniga 1.5 milyan, Argentina oo kaalinta sagaalaad 1.4, Colombia oo kaalinta tobanaadana 1.2, Mexico oo kaalinta 11aad ahna 1.0, Jarmalkana waa 1.4, kaalinta 12aad ayuu ku jiraa. dalka Mexico isaga oo tirada adduunka faafista viruska kaga jira kaalinta 11aad ayuu haddana marka laga soo reebo saddexda wadan ee adduunka ugu horeeya ee Mareykanka, Hindiya iyo Brazil, dhimashada waxa Mexico ay ku jirtaa kaalinta afraad, waxaana tirada guud ee dhimashadu Mexico ay maraysaa 104,873 qof. 24 saac la soo dhaafay xagga dhimashada waxa ugu badnaa dalka Mareykanka oo 216. waxaa ku soo xigay Mareykanka dalka Talyaaniga oo 686 qof ay ka dhimatay, sidoo kale dalka Brazilna 639 ayaa ka dhintay. Yurub, Ruushka ayaa ugu dhimasho badan waa 510. Faransiiska oo baryahan dhimashadiisu ay aad u badnayd haatan waa ay soo yaraanaysaa, waxaana ay hoos ugu soo dhacday haatan 213. marka aynu eegno dhinaca wadamada muslimiinta, Iran ayaa ugu badan oo kaalinta 15aad adduunkana kaga jirta. xagga wadamada muslimiinta iyadu ugu horeyso 371 qof ayaa 24 saac la soo dhaafay u dhintay xanuunka. tirada dhimashaduna waa 48,246. sidoo kale 24 saac la soo dhaafay dalkaasi Iran waxaa viruska laga helay 13,321 qof, iyadoo tirada guud haatan ay marayso 962,070 qof. halkii milyan wax yar ayaa dalkaasi uga dhiman. Turkiga oo wadamada muslimiinta kaalinta labaad ku jira
adduunkana kaalinta 18aad kaga jira ayaa 24 saac lasoo dhaafay waxaa dalkaasi Turkiga fayruska laga helay 29218 qof. tirada guud ayaa maraysa 607628 qof. dhimashadu waxaa Turkiga ahayd 24 saac lasoo dhaafay 185 qof. tirada guud ee dhimashadana waa 13558. Ciraaq ayaa kaalinta saddexaad wadamada muslimiinta ku jirta halka adduunkana kaalinta 20aad ay kaga jirto. waana Ciraaq wadamada Carabta ay u haysaa hogaanka iyadoo 24 saac lasoo dhaafay ay dhinteen 34 qof. 12258 ayay taasina tirada guud ee dhimashada ka dhigaysaa. waxaa sidoo kale Ciraaq 24 saac lasoo dhaafay laga helay 2144 qof, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 552,549 qof oo nus milyoonkii kor ayay u dhaafeen. dalka Sacuudi Carabiya ayaa kaalinta labaad wadamada Carabta ku jira halka kaalinta afraad Islaamka uu kaga jiro. adduunka weynahana kaalinta 30aad ayuu ku jiraa. waxaa 24 saac lasoo dhaafay dalka Sacuudi Carabiya laga helay 12 dhimasho ah, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 5896. 232 qof ayaa laga helay viruska corona 24 saac lasoo dhaafay, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 357,360 qof. dalka Canada wadamada qaaradaasi Mareykanka iyo agaarkeeda isaguna kamid wadamada haatan xaaladiisu ay aadka u daran tahay ayaa 24 saac lasoo dhaafay waxaa u dhintay viruska corona 82 qof, iyadoo tirada dhimashada viruska corona ee dalkaasi Canada ay tahay 12,032 qof. 24 saac lasoo dhaafay Canada waxaa laga helay viruska corona 5,746 qof, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 370,278 qof. wararkii dhageystayaal aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM ee ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale. intaa ayaan maanta kusoo koobaynaa. inta aanan gabagabayn barnaamijkeena waa dardaarankii caadiga ahaa ee aan soo gudbin jirnay, kaasi oo ah qof walba ha ku dadaalo nadaafadda caafimaadka sida gacmaha oo si wanaagsan la isaga dhaqo markasta oo dibadda laga yimaado oo guriga la soo galo, iyo markasta oo aad wax cunayso, iyo markasta oo aad sankaaga ama aad rabto inaad indhahaaga taabato. sidoo kale ku dadaal kala fogaanshaha, afshareerka, iyo in qofku uu iska ilaaliyo bixitaanka iyo tagitaanka goobaha dadku isugu manayo xataa qoysaska dhexdooda. waxaa aad loo soo jeedinayaa in dhowrkan toddobaad ee soo socda qoys walba gurigiisa uu ku ekaado oo wixii salaan ah dhanka ay noqoto internetka iyo telefoonada la iska salaamo si markaasi khatarta faafista virusku ay u yaraato. iska ilaali socodka bilaa macnaha ah, dan mooyaane wax kale ha u bixin, haddii kale waxay noqonaysaa xaaladdu inay kasii darto. haddii viruska corona laga helo gurigaaga joog, karantiil haddii lagu geliyo gurigaaga ku ekow, haddii lagu go'doomiyana gurigaaga ku ekow. waxaad ogaataa adduunka ka soko aakhiro inay dambi tahay adigoo lagu fariisiyay inaad magaalada socsocoto. haddii arrinkaas lagugu helana in wadankan lagugu qaadi karo dambiga ah faafista ama faafinta cudurrada faafa ama jebinta sharciga ka hortagga cudurrada faafa, kaasi oo ugu yaraan 3 bilood oo xarig ah ama ganaax lacageed intaasba ay dhici karto. sidaa darteed wayna sahlan tahay qofka in la ogaado, maxaa yeelay telefoonka aad sidato ayaa ku sheegi kara maalinkii inta meelood aad tagtay. haddii laga shakiyo kaliya oo laga codsado in la soo cadeeyo, intaasaa kugu filan dambi. marka aakhirana dambi ka weyn baa jira. qof walow marka karantiilka inta lagu geliyo ko ekow gurigaaga ha ka bixin. ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno cudurkayaan faafistiisa aan ka qayb qaadan. qof walba waxaa laga rabaa kaalintiisa inuu ka qaato sidii looga hortagi lahaa cudurkan adduunka oo dhan saameeyey. waxaa looga hortagi karaana waxay tahay iyada oo la qaato talooyinka iyo waanada ka imanaysa dhanka howlwadanada caafimaadka. afshareerka marna ha ilaawin, qaado goob kasta oo aad joogto, gaar ahaan markii aad gaadiidka dadweynaha raacayso, marka aysan suurtagal ahayn inaad dadka ka kala fogaataan, iyo marka goobaha guud ee dukaamada iyo aad marayso. ilaah waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala xanuunkan inuu dhibkiisa naga dulqaado, inta xanuunsan ilaahay uu caafiyo, intuusan ku dhicin ilaahay uu ka ilaaliyo, dhammaanteenna uu naga badbaadiyo. tan iyo intaan dib ugu kulmi doonno mid lamida barnaamijkan waa codka Soomaalida Finland SSM oo idin leh dhammaantiinba nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.